waxaa loo hadlayaa sheekada Wayne Rooney oo ka sheekeeyay xiriirka la dhexeeya Cristiano Ronaldo isagoo waxyaabo badan kala hadlay wareysi oo la yeeshay Rio Ferdinand. Muuqaalkan ku soo qaadan doona waxyaabo badan oo ka hadlay Wayne Rooney laacibka hore kooxda Manchester United. miyay jirtaa cadaawad ka dhaxaysa Ronaldo iyo Rooney muxuu ka aaminsan yahay isbarbardhigga lagu sameeyay Messi iyo Ronaldo? muuqaalkan aad ku daawan doontaan dhammaan su'aalahaasi uu kaga jawaabay wareysi uu la yeeshay Rio Ferdinand islaaliyay hore kooxda United-ka. haddii muuqaalku soo gaaro waxaan ka codsanayaa si sharaf leh inaad subscribe inoo saarto saaxiibadaadana la wadaagto. Rooney wuxuu yiri dadku waxay moodaan inaan necbahay CR7 laakiin waan jeclahay. waxaan u arkaa inuu yahay ciyaartoy maskax badan oo genius ah. wuxuu hadda sameynayaa waa wax cajiib, dadku ma fahmi karaan sidaan isugu dhaweyn aniga iyo isagu. waqtigii Manchester aynu wada joognay iyo kadib markii Real Madrid tagayba saddexdii xilli ciyaareedii ugu dambeeyay wuxuu noqday goolhayaha ama goolaliyaha ugu sareeya horyaalka Sacuudiga. anigu si gaar ah ayaan jeclahay. dhankii Messi ayaa wax laga weydiiyay Rooney. Messi aad baan u daawaday ciyaaristiisa, sababta kaliya aan u sheegay in Messi ka fiican yahay Ronaldo waxay ahayd qaab ciyaareedkiisa iyo farshaxanka kubadda cajiibka iyo siduu ciyaartooyda kale ugu qiyaamo waxaysan marna ku fikirin. laakiin Ronaldo waa dilaa ama killer markii goolkoortiisa kubaddu timaado. dadku waxay moodayaan mar haddii aan sheegay in Messi ka fiican yahay Ronaldo inaan necbahay ama aan hoos u dhigayo saaxiibkayga ama aan liidayo. maya, kaliya waxaan jeclahay xirfadnimadiisa. Messi waa inta Ronaldo weli waa ciyaartooy cabqari ah oo maskax badan, ayuu yiri Wayne Rooney. dad badan ayaa isweydiinayay Rooney inuu taageero u muujiyo Messi maadaama uu yiri Messi ayaa wanaagsan, laakiin xidiga ayaa ku jawaabay inuu kala jeeday Messi farshaxan ahaan mucjiso inuu yahay halka Ronaldo isna yahay dilaa dhanka goolka haddii la yimaadana aad looga cabsado. Wayne Rooney iyo Ronaldo ayaa waqti waxaan ku soo wada qaatay kooxda Manchester United kuwa ku soo guuleystay markii la eego koob kala duwan oo ugu weyn koobka Champions League 2008 wada qaadeen horyaalka Ingiriiska oo sanado kala duwan ciyaartooydan ay si wada jir ugu qaadeen kooxda Manchester United ama Red Devilska. dhinaca kale sheekada soo qaadanayna muuqaalkan warbixinada qaybka Lamine Yamal ee isbitaal ku boqol saaxiibkiisa Barcelona Gavi. Lamine Yamal ee isbitaal ku boqol saaxiibkiisa Barcelona Gavi kadib dhaawac kale oo culus oo soo gaaray. ciyaaryahanka khadka dhexe Real Spain waxa la xaqiijiyay Gavi garoomada ka maqnaan doona 4 ilaa 5 bilood kadib markii qalin jilibka looga sameeyay iyadoo kooxdu doonayso xal waaro dhaawaciisa soo noqda. kooxda Barcelona si dib leh u go'aansatay Gavi marka lagu celiyay qalin ka lagu sameeyay jilibka 2023 juka gaartay dhaawac oo maqnaa ku dhawaad hal xilli ciyaareed. hadda mar kale wuxuu bilaaban doonaa waqti dheer inuu maqnaado. markii hore Gavi ayaa sheegay ama ka maqnaa kontaneed kore intuu ka soo kabanayay dhaawaciisa waxaana hadda la saadaalinaya inuu sheegi doono in ka badan 30 kulan oo kale maadaama baarkii wajihiisa kulamo badan la liiga. Gavi ayaa fariin dhiirigelin soo dhigay baraha bulshada. wuxuu yiri qof kasto iyo qaarin uu ogyahay inaan soo laaban doono muddo intay doonta qaadatay si aan u difaaco baarka la dhamaadka geesiga dhabta ah. waqtiga ayaa sheegay oo aad ku mahadsantihiin dhammaan fariimaha taageerida ee jacaylka aad ii muujiseen. taageerahaas waxaa ka mid ah ciyaartooyda kooxda isbitaalka u tagay oo si niyad ah ugu dhisaan laacibka niyad ugu dhisaan. Lamine Yamal, Pedri, Ronaldo Araujo ayaa booqday Gavi inkastoo wajigiisa laga dareemayo xanuun, haddana wuxuu sawir la galay Yamal isna fariin u diray Gavi isagoo yiri geesigayga shaki uguma jirin si dhaqso leh u soo noqon doonto sidii ugu fiicneed. waxa uu kuguma adkaan karaan dhammaanteen xoog ayaan ku rajeynaynaa waana ku jecelnahay. Alexandro Balde ayaa ku daray waxaad ku soo laaban doontaa sidan si ka wanaagsan walaalkii, ayuu yiri. xidiga hore Barcelona iyo guuleystaha Poland Ousmane Dembele ayaa isna yiri adkayso walaal, waxaan rajeynayaa si dhaqso leh kusoo kabato si aan mar kale kugu arko adigoo garoon ku raaxaysanaya waana kuu xiisa, ayuu yiri Ousmane Dembele. dhammaan ciyaartooydaas ayaa garab istaagay xidiga caanka Gavi oo dhaawac ama qalliin lagu sameeyay garoomada muddo ka maqnaan doono.